ورحمة الله وبركاته. على good morning معلمين إذا ودنا كراكولا بالني كولج. على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تتحكي بنشوفني هذه معلمين كي بنشوفي إنتهي بنشوفي لكن قال جاهي يقول بحنا في عمر بتيك توك إنه إذا كولج بنقصه في ديالي شو جمانتا. السلام عليكم صاحب هذه أصوات تاجرة هذه أصوات تاجرة فيسبوك تيك توك بقى أروح تيك توك لعمي هذه أصوات تاجرة وكلام هذه إذا كولج تاجرة كنا معنا شيء جاي هذيك أمور هاي صوت عارف هذيك اللي في مكانه كاسنا جنب إذا كولج تاجرة عليه هذا دوري يقولني لكن كسي ولا ماليه هاي meel kasta joogtay kara fahmi meel kasta ay iga maqlayso dhawaaqeeya iyo hadalkayga maanta soo gudbinayaaba aad iyo aad baan u salaamaya cabdi shukur cabdi xakiim dhammaan kala korta fahmi oo dhan macallimiinteeda oo dhan waxa leeyahay guuliyo gobonimo ka mid ah Ibrahim cabdi xakiim macallimiinteeda aad iyo aad baan u salaamaya boqolkiiba boqol waxa leeyahay shaqadaan wayno yani waa imtixaanka maanta jira wardiyaanka weynaa tababaraha coachka ahaa gaar ahaan kooxda Goodir ciidanka Bilayska kabacdina in ka turjumaan ka yimi waxa ku soo saaray biiguri waxa soo saaray baan kuuri waxa la igu waqtiga maanta taagani inta buug qaato inaan iqra taga college qofka aan waxba aqoonin waa qof qol madow ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxa marka hore aan kala soo hadlayaa Ali Maxamed Ali Baba wardiyaanka weynaa tababaraha coachka ahaa gaar ahaan kooxda Goodir ciidanka Bilayska inta marka ka hadlo horta aqoontu waa wax wanaagsan qofka aan waxba aqoonin waa qof qol madow ku jira kuma jira iftiin qol madow ku jira marka waxa weeye igu kalifay inaan maanta barnaamijkan aan soo galo ama la iga duubo waxa weeye macdala wadan kale aan tagay oo Ingiriiska lagu hadlayo aniguna aan Ingiriiska aan aqoon af Soomaali waxaan baan dhaafsanayn adduunka waxa af Soomaali la lagama hadlo caalamka af Soomaali waxa lagama hadlo lamana yaqaan ka bacdina dhakhtarkii aan tagay aan islahaade turjumaankayga baa igu halkaas fadhi si joog ka bacdina qofkii shaqayn lahaa kalkaalisada ahayd waxay ku tiri use English I know baan idhi English ma garanaya baan idhi kana waxay ku tiri kamal Arabi ana Arabi ma garanaya ku la عربي ما قرني ما قولي كبعدين هالكان دبّا كتمي قف كل شيء نبي كم عذلا أنا قرنين أنا عربي دي إنجليش تمندا قرنين ده واحد هو قف كمرة ضاد فكرنين وحلا واحد ما شرتم سيروا باتي بعدين قل أوت ما ترد بده فريسة أنا ودي الإنجليش ما قرنيه قد أوت تجلس هذا من بدن بول مقلي لده بده فريستي كبعدين يمكن ترجمان كبيم حاك سوس عربي يقولي واحد سوس عربي بنقولي وحلا يقولي إنجليش تاع عربي ده ما تقنا سيد قفكي أنا وداقنه ماشي كشقيني أفكو كهلي marka dhibtaas ay gaadhay inaan wax barasho galo waxaan ogaaday macdala aanan wax barashada aan maanta waqtiga maanta taagani inta buug qaato inaan iqra taga college tago oo aan isqoro halkaas oo aad iyo aad la igu soo dhaweeyay oo qofkii wax barashada xiisaynaya ama qofkii doonaya inuu wax barta aqoonta ku dhisto la garab taagay mar walba si qurux badan oo soo dhaweyn leh lagu soo dhaweynayo marka waxaan leeyahay war waqti muu tagin ama weyno ama yarow ama cirro yeelo ama hayala qof kasta wax barashadu waa diyaar marka waxaan leeyahay wax barashadu waa qodobka koowaad qofku hadduu wax dhigto waa qof iftiinku maanta aad qorraxda soo baxday oo kale weey marka waxaan leeyahay laga faa'iideysto dhalinyarada yar meelaha iska fadhida odayaasha halkaas ka fadhiya cid walba barashada waa waajib waan garay dad badan oo aan isku tagnay meeshii aan tagay Ingiriiska laga hadlay gabayga waa garay dumar inuu kuraasada mar ku fadhini turjumaanku baa lacag naga qaadanay oo nagu lahaa qof walba lacagtaada iska diyaar gareyso laba ereyo yar oo Ingiriisha oo marna uu la hadlayo lahaa wuxuu sheegay marna uu lahaa qofkaas dhibtaas haysata ama dhakhtarnimada halkaas xanuunaysa ama halkaas qofka ka dhibaataysay gabaygiisa ninka dhinayna wadi laba ereyo buu nagu wadi oo Ingiriisha marka waxaan u arkay inaan labadii eray maanta dhigtay oo wax kordhiyo marka aqoontu waa wax wanaagsan waa wax fiican wax badan bay dilaacay imkaba 10 badan baan durba bartay hadda boorarka waan akhriyaa meelaha marka mar boorarka waan akhriyaa hadda dawadii imka marka farmasiga tago waan akhriyaa oo wadanka taan akhriyaa ma Pakistan ba ma Hindiya ma Yuruba
hadda dheedka ku yaala dawlad halka kaga yaala durba way dilacdo waan akhriyaa marka waxaan qabaa aqoontu inay tahay wax wanaagsan insha Allah una bardho wax ku rajaweyni aqoonteeda haday tahay ciidan iyo haday meel kala taba inaan kordhin doono waxbarashadeeduna maanta meel fiican bay maraysaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh